odayaal waxgarad iyo qorweyn ka soo jeeda deegaanada dhagaxdheer iyo dheryaley ayaa shir jaraa'id ay si wada jir ugu qabteen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay kaga soo horjeesteen caleemasaarka suldaan cusub oo ay sheegeen in lagu caleemasaarayo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxayna sidoo kale odayaashan iyo waxgaradka sheegeen inaanay u dhamayn caleemasaarka suldaankaasi halkan waxa ka dhacday madax dhaqameed dawladdu siisay suldaannimo siisay u soo saxeeday haddii u soo saxeeday annaga horeena loogu diiday haddiina loo diiday baaldheeyay hawd baan la qaban waxaan leeyahay halkaa maxdaqaymaqeendada lagu martiqaaday haddii ay qadarkay leeyahay inaan meesha aanan u dhamayn haddii suldaannimo doonayo dee waa inuu haddii ay reerkooda sheegtaa waxaan kaloo leeyahay suldaanka barkad ina cabdi shaybi iskuma raacsaninkaa waxaanan isugu raacsanayn aadan madoobe 5 ardaa ma ahee waa 3 ardaa saddexdeeda qoloba aqalaan kala leenahay mar haddaanan isku raacsanayn dee waa inuu reerkooda sheegtaa qodobka aan ka hadlayaa koobaad waxa weeye suldaan dhaqameed lagu shaaciyay 5 ardaa oo aadan madoobe ah haddaanu nahay beesha halkan fadhida oo ka tirsan beelaha aadan madoobe hore ayaa aanu u doonanay suldaan markii aanu suldaanka doonanay waa naloo diiday dawladana laga ashkateeyay xafiis walba barasaabka iyo maayarka labadaba warqadaha loo dhiibay waxa la yiri suldaanka laguma dhigi karo Somaliland hawd baan oo saaray baaladhay ayaan ku caleema saaray arinta caynkaas ah waxa imka la shaaciyay in suldaan aadan madoobe oo 5 ardaaya la shaacinayo taama ogolin waan ka soo horjeedaa because annaga naloo diiday halkan waxaan isugu nimid inaanu ka hadalno suldaan beesha kamid ah oo la magacaabay hal magacaabay horaan u magacaabay anagu waana naloo diiday waxaana loo adeegsaday dawladda aan soo wada halganay baan loo adeegsaday arintiisa u martay ee aanu halka xadaafirtana mariyay suldaan cusub la soo magacaabay 3 ardaa baa aadan madoobe saddexda ardaa ninkii ardaagiisa suldaan ku doonanaya waa meel mar laakiin haddii dad la isku xaabiyo oo aan kun wax sheego dee wax suuroobaya maaha suldaan shaaciyey suldaannimadiisa oo boodharkiisa iyo arrimihiisa oo dhan kusoo dhajiyay suuqa oo waxa uu qoran iyo waxa uu yahay aan islahayn in laga hadlo suldaanka waxa uu qoran 5 ardaa ee reer hebel laakiin maaha waxa weeyaan sida odayaashu sheegeen raas aadan madoobe kamid ah isla gartay magac bay u bixiyeen waxa weeyaan inay halka ku joogaan ay ku qurux badnayd laakiin ummad kale oo waxba la qabin oo dareen kale qabta oo madax dhaqameed kale leh inay dhakada iska saaraan oo ay yiraahdaan haddaan reer hebel lahay kaasaan noo suldaana arintaasi waa arin waxba kama qodobka labaadna waxa weeye dawladdu ma aha madax dhaqameedka digreeta lagu magacaabo wasaaradaha la magacaaba iyo wasiirada laakiin madax dhaqameed lama arag la yiri waxa magacawday wasaaradda arrimaha gudaha ama wasaaradda madaxtooyada waa arin qaranka Soomaaliland ku cusub waa arin ceeb iyo fadeexad ku ah madax dhaqameedka Soomaaliland waxa laga yaabaa in lagu marti qaaday arinka waxaanu idin sheegaynaa waa digniin inaydaan ka qayb gelin shirka la idinku baaqay inaanay waxba ka jirin oo mid aadan madoobe aanu u dhameyn yahay Ibrahim Faarax Macaan iyo Cable TV Burco.